بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق أحمد آدن حاشي waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho walaashay degan waxaan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad siisay oo aan muxuu ahaa hawshan aan wada aad iga wareysanayso waan kaaga mahadcelinayaa hawshan horta waxaan bilaabay muddo bil ku dhawaada ayaan wadaa waxayna aan ugu talagalay waxa waaye inaan adduunyada sida ay u horumareen inaan anagana u horumarno wadan kasta hantida uu leeyahay waa dhalinyaradiisa marka aniga hantida wadankan ka mid ahay sida daraadeed marka xamar waxay ka kooban tahay konton iyo saddex isgoosay ka kooban tahay hadda waxaan sameeyay ugu yaraan 10 meelood aan hagaajiyay waxa ay dhiman haddartaan 43 qaybood meelood oo isgoos ay dhiman waaweyn meel qaarna waxa iga ciladeysan wadooyinkooda jabsan laakiin aniga sida daraadeed mar walba waxaan jeclahay inaan si xoogayga iyo aqligayga inaan mar walba sadaqaysto oo aan dalkayga ugu hagar baxo aniga inta ugu badan waxa waqtiga geliya sidaan dhalinyarada u wacyigelin lahaa oo aan iraahdo dhalinyaroy wadankeena horumarsada dhalinyarada inta ugu badan waxaan kala hadlaa aysan tahriibin oo dalkooda ay ka bixin waxa igu dhaliyay aniga shaqadan inaan qabto waxaan arkay hooyo Soomaaliyeed oo ilmo wadata ama hooyo Soomaaliyeed oo waayeela oo wadada dhexdeeda bartanka laamiga dhex marayso oonan jirin meel u habaysan ama meel u calaamadaysan marka aniga waxaan u asteeyay waxa waa meel ayaga ay leeyihiin inay maraan meeshaasna waxaan ugu talagalay calaamado oo ah liidad cad oo dadka inay maraan loogu talagalay ayaan aniga sameeyay meel dadka ay maraan liidad cad ayaan aniga sameeyay marka liidadkaas cad waxay u saamaxaysaa qofku darawalka iyo qofka inay kala badbaadaan sababtoo ah qofkii si degnaanshaha uu ku marayaa meesha laakiin qofku markuu laamiga dhexdiisa uu maro darawalkiina uu qalqalayaa oo wuxuu galayaa qofkan goormu kugu soo leexan doonaa marka saa daraadeed aniga waxaan sameeyay waxa waaye meel dadka iyo baabuurta ku kala badbaadi karaan hortay dhalinyaradu laba qodob oo inta badan kuwa aan saaxiibadan ahay igala hadlaan way raacayaan laakiin balse walow ma jirto kuwa raaci karo hawshii la qaban kara waxay sameynayaan meel gees iga fariisanaya anigana waxaan tagaa xilli ay qoraxdu kulushahay xilliyada qoraxda kulushahay waxaan u tagaa waxa waa laamiga iyo rinjiga inuu isqabsadaan rabaa marka ninka dhalinyarada iyo uma saamaxayso in laamiga kululaa aniga waxaan sameeyaa gacanteedana oo ku mariya gacanta kale ii banaaneedna laamiga kulaan ku qabsasaan ugu tiirsado marka qofkii la socdo uma saamaxayso laakiin aniga farxad iyo dhiiranaan iyo dalkayga macnaha qiimo ugu leeyahay oo wadan shay macnihiisaan soo arkay aniga muxuu ahaa igu dhalisay zaid dadka qaar waxaan kala kulmay inay igu yiraahdaan lacag ku soo qaadatay mashruucan adiga macnaha soo qaadatay balse xitaa dad qaar oo muxuu ahaa ii sheeg oo ganacsataa iska daa shacabka dad xataa caadi oo ganacsataa oo dhahaya jira waxaan aawdid muxuu ahaa ma iska deysid kuwa rinjigan ka soo gadanaya xitaa macna gaar ugu ma fadhiso marka ani saa daraadeed ayadoo waxa soo caqabada ay u hareereysan yihiin ayaan haddana mar walba farxad guriga kula soo toosaa farxadna aan kula noqdaa horta aad aan u maadsantahay walaashay shaqadan ehelkayga hortay tasiilaadka ugu badan aan wax ku bixinayo ama wax ku helaayo ehelkaygaan ka helaa ehelkaygan waa kuwa kaliya igu dhiirigeliya inaan dadkayga caawiyo igu dhiirigeliya inaan aniga muxuu ahaa dadkayga iyo dalkaygaba wax u qabto aniga wadan shisheeyaan aaday waxaan xasuustaa nin askariya intuu soo baxay anoo meel xuduuda jooga intaan biyo weydiistay oo intuu ciid soo qaad afkiisa gashto oo igu yiri oo igu tufay oo igu dhahay wadankayga maxaa igu timid marka waxyaalaha kaliya mar walba ka jirracoodo markaan arko wiil dhalinyaro wadankiisa ka baxayo taas waaye waxa damqaay mar walba ma dawladda dhankeeda wax caawinaa kama helin xitaa mar qaar ay wafdi ama madax cabdibilaal lagu waardeenayo ama hawsha meelaha ka hay xitaa way ag maraan dad shacab waxa arkaysaa meelaha markaa rinjiga wado dhalinyaro waxa arkaysaa bajaajka iga soo degayaan oo biyo qabow isiinayaan shaah ii keenaan madax islaaxaan rag madaxda dawladda kamid ahna iyo ag marayaan ayagoo la ilaalinayo xitaa marka qaar waxaan dareemayaa in ayagoo rinjiga ii qoyan yahay ii dul marayaan oo aanan ka joojin karin aan dhihi karin iga istaag oo awoodeed ii saamaxaynin anigana waxaan ku xisaabtamayaa tabarteedii muxuu aqligaygaan kula xisaab ku yani ku socdaa mooyaan awood kale ma lihi marka haddii aniga aan heli lahaa aan arki lahaa hawshan aan wado dawladda igala wareegtay aniga waan nasal lahaa waxaan dareemi lahaa
inay wax meel dheer ay gaareen oo fariinteedii dadka ay wada fahmeen walow hadda dhalinyarada ay fahmeen wadadan aan sameynayo inay tahay mid ayagii ay leeyihiin horta dadka waxaan leeyahay oraha dhaysaa jirta dal walba dadkiisaa dhista aniga Axmed ahaan nin Soomaaliyeed aan ahay haddaan aniga Soomaali sheegan lahayn wadanka muu jiri lahayn marka dhalinyarada waxaan leeyahay dal walba dadkiisa dhista dalkeena aan horumarsano dalkeena qofka dhalinyarada waxaan rabaa inaan u sheego hantida kugu qaalisan haysatid waqtigaaga waa waqtigaaga dalkaaga ugu sadaqee ku cibaadeyso dalkaaga wax ugu qabo ehelkaaga wax ugu qabo lafahaaga wax ugu qabo marka waa inay ku balan gareysan yihiin ama ay ku kala qorshaysiin waxa aad noloshaada ka maareysan ama aad ka qaban lahayd marka waxaan leeyahay dalkiina dhista dal shisheeyada waqtiga ka qasaarayo oo kugu adkaanaysa inaad micnaha hadhowtiin waxaad ku soo noqonaysaa xamar adoo daalan aad ma santahay walaashay horta aniga ilaah horta caawinaad baxsha laba qodob horta waan isweydiiyaa dadka ganacsatada ah dadka wax haysta marka ku tiraado wax isii wuxuu ku dareensiinaya ama aad rinjiga iga gad wuxuu ku dareensiinaya in qiimo la lahayn oo micnaha uu ku niyad jibnaya ganacsatada inta waxay ku leeyihiin maxaan xaysiin ku heli karnaa maxaa feedback nooga soo noqonaa waxaan aad qabanaysid marka aniga waxa igu kalifto waxa waaye kubishiinka halka doorar kubishiinka aan ku cabay inaan isbuuc aruuriyo isbuuc kadibna aan yiraahdo isgoos hebel aan ataagaya laakiin haddaan heli lahaa waliba maalin ka dambeeyay waxa ii ziyaadaysa fikrada ah habka wax u sameynayo xataa fikrada ii ziyaadayo marka fikradaas ii ziyaadayo xitaa aniga kuma ekay maalmahan inaan wadar kaliya ranjeeyo waxaan soo qabtay tahriibta waan ka wacyi geliyay dhalinyarada coronavirus sidoo kale barnaamijkan ka soo sameeyay hadda wadooyinka xitaa waxaan jecelahay insha Allah hadii duruufta ii saamaxdo in xitaa meelaha jajaban aan buuxiyo oo dhagaxaan iyo shamiito aan hagaajiyo xataa dhalinyaro saaxiibada aan la kaashanayo taasaan rajeynaya hadduu Ilaahay yiraahdo walaashay waan kaaga mahad celinayaa fursadan qaaliga aad siisay adiga iyo tiimkaaga Nabad TV waan u mahad celinayaa sida wanaagsan oo fariinta wacyigelinta aad qayb igala noqoteen sharaf korkiina Allah idin sharfaa leeyahay guuli gownimo idin rajeynaya Soomaali maxamed meel walba joogtaan waxaan leeyahay guuleysta